سؤال شو بقول رئيس هدي إنه كبلا ونا دكتور واحد شراء أما إنه كبلا يسمونه هرتوام حيريبو وام حي حكم كيدو شرعي أهان إن لو رقمه يسدو كره إن الشرعية أو برلمان كإنت لمريو واحد دلكو وكل رقم الله قد يجوا حكم كيدو محونا قنايا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى وهرين مهدله إنه سورة جلي كلن كان خاص كا سيدا كله وتكون أصلا تاي برامج كنا نسوي قاعدين نسوق مقابسي هذه ولا الله كلامه. أن السؤال شا تان جوابته سكوت ضير ربدو أما كلمة الربد اللي هذا وكلمة عربي أصلهان وحيلا هذا معنى الشرعي هي معنى اللغات كاين خصيصا كهذا لأنه وحوي معناها الشرعي marka ribo macaani badan bay culimadu siiyaan waxa si ugu muhiimsan ku koobsanaynaa waxa weeye dheef la saaro raasamaal ka soo horjeeda dheef la saaro raasamaal iyadoo aanu jirin wixii ka soo horjeeday ay ku aadanaa dheeraadkaasi ku aadan dheeftaasi ku aadanayd waa marka laga hadlayo nooca la yiraahdo ribadu nooc leedahay nooca la yiraahdo riba duyun marka laga hadlayo riba buyuu ama riba fadli nooca la yiraahdana ribo waxa la yiraahdaa laba shay oo sharcigu uu diiday in la isku bedelo oo kala sareeya in la kala sareysiyo ama laba shay oo sharcigu diiday in la isku bedelo oo mid ahaan dib loo dhigo oo ay shardigu yahay marka la kala qaato mid ahaan dib loo dhigo iyadana waxa la yiraahdaa riba nasa oo riba weeye marka macnaha ribadu guud ahaan waxa weeye waa dheef kor la saaray deyn la saaray kan hadda u jeedno ka hadlayna waxa weeye waa dheef kor la saaray deyn cid la siiyay lacag la saaray oo dheeraada weeye marka dheeraadka deynta ka dhasha ee aan muqaabil lahayn wax ka soo horjeeda lahayn dhiganaheeda ka soo horjeeda lahayn baa waxa la yiraahdaa ribo xukunkeeda sharciga waa mas'alo la wada yaqaano oo ribada xaaraantinimadeedu ribada waa xaaraantinimadeeduna waxay ku sugnaatay dhammaan adiyaanta samaawiga diimaha samaawiga oo dhan baa isku waafaqsan xaaraantinimada ribada islaamku meel adag ribada iska taagay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka ayuu si adag ribada uga hadlay oo ku xarimay aayadda ribada ka hadlaysa xarimaysa ee xumaanteeda tilmaamaysa markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka warramayay ku xarimay ribada waxa uu adeegsaday eray runtii xanuunkiisa iyo adkaantiisa leh Ilaahay wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وحي له دواقيا تدك إلهي سبحانه وتعالى رميسان يا نبي جيسا يا معنى آخرة وحنا نقول باقي وليه هدو إيمان شروه واد إيمان ليدهين واحد كتك تان ربا هداد يلو إذا سداس والربا كتيجي وإذا واحد كنت لقشان دقال على الله سبحانه وتعالى رسول كيس لقشان لما واحد هذان دقال إلهي لقى رسول كيسا إن لجوه هنشبه وإلهي سبحانه وتعالى ضد كوجو جوديو وحكوا صور القرآن كمركز سكليه يعني مع سكالة أو هل كان جالسي هذا سكتي وإذا إلهي بدل دقال الله ما يسانه الربا هني ما شفته مركز القرآن كلا ده شو مركز الربا وحرام وحني كم تهي وحيالها تيرر حرام تيرر كإسلام كنت عجيني أي كم تهي qofku inuu riba u noqdo ama uu ku tacaamulo inuu bixiyo ama qaato ama ku shaqaysto ama ka shaqeeyo marxaati ka noqdo intaba rasuulku uu nacdalay calayhi salaatu wassalaam oo rasuulku waxa uu leeyahay shan buu ku nacday ribada rasuulku calayhi salaatu wassalaam la'ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam fi riba khamsan akilahu wa mukilahu wa katibahu wa shahidayhi ka cunaya ee qaadanaya iyo ka bixinaya ee cunsiinaya iyo ka u kala qoraya ee ka dhex shaqaynaya iyo labada marxaatiyada ah iyaguna shaqadii way soo galayaan marxaatiyada ah shantaas rasuulku wuxuu filismi sawa dambiga waa iskaga mid markaas waa xaraan ay nacdali ka ratimayso waxay kamid tahay dunuubta waaweyn ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu caasiyo ay kamid tahay ribadu dunuubta lagu halaagsamay todobada rasuulku tiri calayhi salaatu wasalaam ay kamid tahay waa ku dhaqankeeda iyo cunisteeda iyo bixinteeda marka ribadu halkaasay islaamku u dhigay ama uu joojiyay barakallahu fiik
way marka qadiyada ku saabsan xukun ahaan in lagu dhaqmo sidoo kale inta baarlamaanka la mariyo ama xukuumadda la mariyo la sharciyeeyo oo dadka sharci looga dhigo xukunkeedu muxuu noqonayaa بارك الله فيك horta waxa ilaahay xarimay subhanahu wa ta'ala qofka muslimka sidiisa ay xaraan uga tahay inuu ku dhaqmo oo la yimaado qofku hadii wixii ilaahay diiday ee xarimay uu ku dhaqmo salahan ribada kale hadii qofku cuno laba mid weeye inuu qofku yahay qof og waxaan inay xaraan tahay laakiin shaydaanka naftiisu ay qaalib ka tahay iska deyn kari oo dambigi ku dhacaya laakiin dareensan inay waxaan xaraan tahay oo aan xalaashanin iyo qof wixii cunaya oo la waliba waa xalaal qadiyada hore qofku marka uu dambi ku dhaco isagoo rumaysan dambigani dambi yahay ilaahay xarimay isagoo uu caasi yahay rumaysan qofkaasi rajul leeyahay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cafiyo inuu toobad keeno maadaama xumaantii wixii dareensan yahay inuu ka toobad keeno laakiin qofka ku tagsan in ay ribadu xalaal tahay ee sidaa u cunaya qofkaasi culimadu waxay gaarsiin xad al-kufri culimadu gaalnimay gaarsiiyeen waayo shay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xarimay oo waliba macluum min ad-diin bidaruura oo aan jahli loogu cudur daari karin qof weyn xaalada yar oo muayyan oo kooban baa qofka jahli loogu cudur daaro saan qof hadda soo islaamka waxba ka aqoonin oo kale ama qof islaamba lagu dhalay laakiin islaam ka fog tacliimtiisa iyo aqoontiisa meesha lagu dhiganay ka fog oo kale waa lagu curdaari karaa laakiin qof weyn oo qaangaar ah oo muslim ku dhex nool inuu yiraahdo ribada xaaraantinimadeeda inkiro diido ama waajibnimada salaada uu diido maaha waxyaalaha qofka jahli lagu curdaaro maaha qadiyadaas oo kale qofka waddo marka sidaa u xalaashado wali marka loo sheego waxana waa xaaraan ilaahay baa xarimay oo ku adkaystay inuu xalaal yahay oo sidaa ku cuno qofkaasi wuxuu gaaray xad al-kufri waa mustaxil wuxuu xalaashaday wax ilaahay subhanahu wa ta'ala xarimay waxa ka dambi badan ka sii daran qofka doonaya intuu xalaashado inuu hadana dadka u sharciyeeyo oo uu dadka yiraahdo waxani waa xalaal ee hal la cuno oo lagu dhaqmo waliba sharci ku ilzaaminaya ama u banaynaya dadka inay waxan cunaan u sameynaya kaasi waa musharric waa sharciyeeye ilaahay subhanahu dhinaciisu wax ka sharciyeynaya waxan wax ilaahay diiday ayuu isaguna dhinac si kale wuxuu ilaahay xarimay buu xalaaleynaya wixii alle xalaaleeyna uu xarimaya marka am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah kaasi wuxuu isdhigay booski ilaahay baa subhanahu wax sharciyeeya rasuulkiisa wax sharciyeeya rasuulka wax xarima waxna xalaaleeya ilaahay baa wax xarima waxna xalaaleeya qofka marka booska istaaga de booski ilaahay buu istaaji naftiisa istaaji marka waxa ka ku xaqiiqoobaysay takhadu ahbaarahum wa ruhbanahum arbaban من دون الله وقف محللة حد كيسو أما حال كيسو قف كاس وحد الكفر يعني قف كاس قال لي ما يكون دعيا حدو سيدا كوسعده إلهي سبحانه وتعالى كعين كاس يكون دعيا نحن نقول باقينا إلهي توبت كنا وصل لابتان إلهي توبت إنه وافجنا ورجينا سبحانه وتعالى. وي شيخ هذا ما سنت هاي ويدين تلبادة إنه ما أنت برنامج كوسام اللي جنا حوين حير كم بنجيد الدرسار كام بنجيد الربا قف بس ده هو يقامه بل إن ير هديات كتابة شرعية ديسة taariikh ahaan bangiyadaas iyo in ay jirto baahi loo qabaa ma jirtaa baahi loo qabaa bangiyada noocaas oo kale barakallahu fiik horta ummaddu inay hesho ila maalgelineed hay'ado maaliyadeed oo ummadda xaaladeeda dhaqaale kobciya mashaariic waaweyn maalgeliya dadka baahidooda daboola in loo helo waa muhiim waa mas'uuliyad ummadeed ومسؤولية دولة سيجارة وصارن ومسؤولية جناحستة صارن ومسؤولية كورن صارن وي إن شرعية ذي الدياريو شركات كلا أبورو سوق كلا أبورو للدراسية ومسؤولية مديد وي وين هو صارن إن ضد كهول كلا يكشقي جزاهم الله خيرا وحن أجنه إن هور الله أنسحيي حير كبنك الدحاء السومالي له xeerka bangiga dhexe Soomaaliland waa xeerkii hagi lahaa ama maamuli lahaa dhammaan hay'adaha maaliyadeed ee dalka ka howlgalaya waxa ka horeeyay oo isaga laftiisu hoos tegaya oo xeerarka wadanka oo dhimi hoos tegayaan dastuurka dalka dastuurkii marka waa yaala waa ansax xeerkaasi waa ansax oo u dhameystiran yahay waxa kale oo la ansixiyay xeerka bangiyada islaamiga ah 2012 baa la ansixiyay xeer number 550
in xeerarkaasi waxa ay buuxinayaan baahidii loo qabay muassasaad ama hay'ado maaliyadeed oo ganacsi oo baahidan u qabno in maalgelin aynu helo dabooli kara marka la eego marka dastuurka dalka iyo marka la eego xeerka bangiga dhexe oo xeerkan marka hadda la wada ee xeerka bangiyada ganacsiga lagu magacaabay uu hoos tegayo marka la eego labada xeer dastuurka iyo xeerkaasi waxa ay xarimayaan ama ay diidayaan in dalka laga hirgeliyo xeerar ama sharciyo khilaafsan shariicada islaamka tusaale ahaan dastuurka Somaliland waxa ku qoran qodobkiisa 5aad xeerarka dalka waxa laga qaadanayaa shariicada islaamka waxaana reeban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda qodobkaasi markaas waxa uu si cad u diidayaa xeer kasta oo la soo dhaandhiriyo oo la keeno oo khilaafsan shariicada islaamka hadduu shariicada khilaafsan dastuurka khilaafsan waa dastuurka shariicada asal u ah isla xeerkaas ayna dastuurka Somaliland qodobkiisa 14aad farqadiisa 3aad waxa ku qoran ribada iyo muaamalooyinka ganacsi ee dib u leh bulshada iyo ku xoolaysiga sifo aan sharci ahayn way reeban tahay qodobkaas qodobada asaasiga ee dastuurka kamid ah iyo qodobka 14aad farqadiisa aynu akhrin labaduba waxay diidayaan in la hirgeliyo xeer ka soo horjeeda shariicada islaamka marka xeerkan hadda la wada halka markaynu eegno qodobkaas dul taagno wuxuu ka soo horjeeda shariicada wuxuu ka soo horjeeda dastuurka dalka waayo xeerkani wuxuu banaynayaa in la sameeyo maalgelin deymeed oo dulsaar leh deyn la bixiyo dulsaar laga qaato taasi waa ribadii weeye sharcigu diiday ee quraanku xarimay sidaas oo kale xeerka bangiga dhexe oo sanadkii 2012 la ansixiyay qodobka 2aad faqradda 3aad waxa uu leeyahay cutubka 2aad qodobka 3aad faqradda 7aad waxa uu leeyahay banka dhexe ee Somaliland wuxuu ku dhaqmayaa ahkaamta shariicada islaamka ee maaliyadeed maamul iyo hawlgelineed isagoo tixgelinaya urfiga hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah isla faqradda 8aad ee qodobka kamida waxa uu leeyahay maadaama saldhigga maamul iyo adeega banka dhexe ee Somaliland yahay shariicada islaamka waxa reeban amaah kasta oo soo jiidaysa manfac dulsaar ana waa xeerkii dhexe weeye dalka xeerka dhexe dalka waa xeerka maamulaya bangiyada islaamiga ah oo bangigan hadda la wado iyo bangiga islaamiga bangiyo dhan maamulaya way hay'adaha maaliyadeed dhamaantood maamulaya way marka la eego horta dastuuriyan ama qaanuuni marka la eego xeerkaas dulsaarka jideynaya waa xaraan way oo dastuurkii dalka iyo xeerarka dhaqangalka ahaa buu horta ka soo horjeeda inta ka hor ka soo horjeeda shariicada islaamka baahi loo qaba ma jirto waayo waxa ansax ah xeerka bangiyada islaamiga ah xeerka bangiyada islaamiga ah wuxuu koobsanayaa dhammaan baahidii loo qabay hay'ado maaliyadeed oo islaami hay'ado maaliyadeed loo qabay ama hay'ado ganacsi oo maaliyadeed loo qabay marka laga reebay inuu diidayo sida dastuurkuba uu diidayo xeerka bangiga dhexe uu diidayo inuu diidayo in amaah dulsaar laga qaato marka haddii aan ka loo jeeda ahayn amaah dulsaar laga helo oo kaliya waxa laala wixii maalgelin ahay banki looga baahnaa uu daboolaya xeerkaas doctor halka dhaafin xeerka hore loo ansixiyay bangiyada islaamiga ahi ma buuxin karaya kaalinta aynu uga baahanahay xeer maamula bangiyo caalami ah ama kuwan lagu magacaabay shaqooyinkii bangigaasi bulshada u qaban lahaa ma kula tahay xeerarka ama bangiyada islaamiga inay buuxinayaan ama xeerkaasi inuu dhammaystirayo waa kala laba inuu nahno bangiyada buuxinaya hadda jira ama iman doona inuu nahno xeerku ma daboolaya xeerka bangiyada islaamiga la ansixiyay waxa uu daboolaya baahi kasta oo looga qabo in lagu maamulo hay'ado maaliyadeed oo caalami ah iyo kuwa maxalli ah labadaba haddaan loo ordaynin oo kaliya dulsaar deyn dulsaar leh oo kaliya haddaan loo ordaynin ugu baahi kasta oo kale uu daboolaya laakiin qodobkaas uu diidaya qodobkan shariicada dastuurka ugu horeeyo diiday waayahay doctor aad baad mahadsan tahay dhanka kale muddooyinkan dambe waxa aad dadku ay u hadal hayaan
in qaalinimada mararka qaarkood waxa weeye bangiyada nidaamka islaamiga ku shaqeeya in ay abuuraan xaalad dadku inay ribadii doontaan marka su'aashu waxay noqonaysaa ribadu ma noqon kartaa daruuro dhaqaale oo duruufaha bani aadamku ay ku nool yihiin loogu banaysan karo oo lagu dhaqmi karo ma tahay markaa ribadii barakallahu fiik waaqica marka aynu si fiican uga warhayno su'aalaha ka dhalan karana waynu fahmi karnaa dulsaarka deynta la saaro ee ganacsigu had iyo jeer dadka xaaladda daruuradeed ee baahiyeed ee nafeed ku jira ma qaataan ee ganacsatada ladan baa qaadata oo bangiyadu ay deyma siiyaan bangiyadu waa muwaasasad maaliyadeed oo ganacsi weeyo faa'iido doon ah cid markaa wax haysato oo ay hubaan inay ka helayaan waxa ay amaahiyeen bay horta wax siiyaan marka daruuradu marka la daruuro horta qof baqtiyo oo baahan oo miskiin wax ma siiyaan taasi waa koowaad laakiin nin ladan oo ganacsada ah oo wax haysto iska bixin awood wax iska bixineed leh ama shaqaalaha haysta mushahar wax ku bixin karo leh ay horta wax siiyaan qof miskiin oo waxba haysanin oo nafi hayso wax ma siiyaan daruurana waxa la yiraahdaa waxa qofku aanu la'aanteed jiri karin ee naftiisu halaagsamayso ama dhaawac soo gaarayo weyni oo aanu jiritaankeedii aanu wanaagsanaanaynin marka daruuraadka waxyaala lagu banaysta daruuraadka wax lagu banaysta oo kaliya daruuratu wuxuu maxduuraat sida qaacida sharciga tahay wax xaalad muayyan oo qofku uu nafku qabada weeye nafta ku qabanayo ayaa lagu banaysta su'aalahan qofta baqtiya sida nus ku soo arooray oo kale oo saxara maraya meel cidlaal ama deegaana maraya oo baqti ku soo baxay xaaladaas oo kale nafta ku qabto inta uu ku badbaadi karo ma inuu ka dhergo xataa nafta ku badbaadi karo ka qaato ayaa loo baneeyay marka horta daruuro ma noqon karto talabaad ribadu lafteeda ayaa ah mushkilad dhaqaale ama dhibaato dhaqaale ah dhibaatadu badbaado ma noqon karto dhibaatada lafteedii badbaado iyo caafimaad ma noqon iyada cudura iyada musiiba badbaado ma noqon karto marka ma arko mana muuqato in la yiraahdo daruuro lagu banaysto riba ayaa jirta ma muuqato asal ahaan lagu banaysan karo halkiina ma muuqato in daruuradana tuqadar biqadariha ad-daruura loo xidhan ad-daruura tuqadar biqadariha daruurada waa la qadaraayo xadkeeda marka la qiyaasa marka xad la oran karo riba in u baahan in banaysano oo muuqata ma jirto دكتور عبد الغني waxaad wax nooga sheegtaa bangiyada islaamiga ahi qaabka ay u shaqeeyaan bismillah bangiyada islaamiga ahi horta marka hore waa hay'ado maaliyadeed oo ganacsi waxay u shaqeeyaan sida bangiyadu u shaqeeyaan waxay u shaqeeyaan sida sharikadaha ganacsi u shaqeeyaan marka la bangiyada islaamiga dad baa kelmadda islaamiga u maleeya hay'ad khayri oo islaamiga sadaqa bixinaya oo wax qaybinaya bangiyada islaamiga waxay kaga duwan yihiin ma jiro sharikaadka ganacsi dadka muslimiinta leeyihiin waxay kaga duwan yihiin oo kale ma jiro waxay ugu qorteen oo kaliya islaami loo yiri in laga sooco dabeecadii bangiyada lagu yaqaanay ee ahayd inay ribo iyo xaraan ku shaqeeyaan laakiin sidii bangiyada u shaqeeyaan waxa ka maqan oo kaliya cunsurkii xaaraanta ahaa shariicadu diiday ee bangiyada kale ku shaqeynayeen ayaa horta iyaga ka maqan oo aanay ku shaqeynin waxa kale ay bangiyada islaamiga u shaqeeyaan qaab ka duwan dhinaca marka laga eego qaabka bangiyada kale u shaqeeyaan oo bangiyada islaamiga ahi waxay qaab u shaqeeyaan saddex nooc mar waa hay'ado maalgelineed sida bangiyada kale ay wax u maalgeliyaan bay u maalgeliyaan marra waa hay'ado maaliyadeed adeeg qabta oo adeegyo bangiyeed bay qabtaan sida bangiyada kale adeegyo bangiyeed u qabtaan bay adeeg bangiyeed u qabtaan sida xawilaadii LCgi LG waxa la yiraahdaa cardski waxyaalaha ankaas ATMki adeegyadii bangiyada kala qabanayeen way qabtaan waxa intaaba u dheer oo ka weyn ka guda balaaran oo bangiyada kale ay kaga duwan yihiin waa shirkado ganacsi ama hay'ado ganacsi oo ganacsi toos ah bay kala bangiyada islaamiga waxay soo iibsadaan waxay sii iibiyaan marka qaabkooda shaqo waa maalgelin waa adeeg waa ganacsi mashaariicda maalgeliyaan ay dadka raasamaalka siiyaan
ama ay iyaguba raasmaalka bixiyaan ayagu maamulaan ama ay cid la wadaagaan oo join ah intaba way sameeyaan ganacsi toos oo noocyo fara badan leh bayc al-murabaha bayc al-salam al-istisnaa way sameeyaan adeegyada tilmaanayna way qabtaan marka saddexda nooc baa u shaqeeyaan bangiyada islaamiga waayahay waxa jira adeeg kamid ah adeegyada ay bixiyaan bangiyada islaamiga oo muddooyinkan dambe hadal hayntiisu ay aad u badan tahay waana nooca loo yaqaan muraabaxada kelmadda marka muraabaxo waa kelmad carabi ah marka haddii isku daynayno sharaxno horta waa maxay muraabaxo waa marka labaad sidee loo fuliyaa sharci ahaan xukunkeedu waa maxay waxa kale oo aad arkaysaa dadka inta badan dooda muraabaxada wada in marka qaarkood ay soo daliishanayaan dad kale hadalkood marka inta maadaama aad aqoon u leedahay muddo dheerna aad ka shaqaynaysay ma jirtaa culimo diidan nidaamka muraabaxada بارك الله فيك هرت مرابحه وإيب بيع المرابحة بالله هذا نوع إيب كي جلسه إيب كان جود أهان مركباب فقه قال تشوفه لبع لاقي بيع بيع المساومة بيع الأمانة بيع المساومة وحوي إيب كعادي جنون قانو توقفوا تماطو وحي إيبي أنت أصلا كاسينيا وحيجده وقرقرتن مساومة على هذا وليبك هو بدن اللي هو رقمه بيوع الأمانة ومرابحته كم تهي صدح نوعية وحوي وحكل سنة مركه هراء كالسوني وفق وحيبينيه إنه كرن شاقه وحنو يبينيه قيمي سنو كرن شاقه شيء نفعانتي سنو كرن شاقه طبيعتي سيقول سنو كرن شاقه marka qofkaasi waxa uu sheegaya waxa uu waxan ku joogo iyo waxa uu siinayo labadaas sharti waa asaasi waxa uu ku joogo ee uu ku kacay markuu soo iibsaday iyo ama soo saaray iyo markuu iibinayo waxa faa'iido u saaran ha ahaato mid percentage ah oo boqolay ah ama ha ahaato mid go'an iibka amaanada marka wuxuu qaybsamaa bayc al-murabaha waa qofkii oo ku iibiya alaabtiisii ku iibiya intuu soo siistay oo faa'iido saartay waxa kaloo kamid ah bayc at-tawliya oo inuu ku iibiyo qofku wuxuu soo siistay raado wuxuu ugu jooga qalinkaasi wuxuu ugu jooga 2000 ni cilaaniga bayc at-tawliya la yiraahdo mana faa'iidin mana khasaarin waa inuu ka run sheegay intuu ku joogay iyo intuu siinay labadaba bayc al-amaana weeye waa amaanadiisa ku salaysanaata كهرنا وحوي لبكم بيجوا جوجا لبكم يوحنا كاسين يا بقول كهرباء بيع المرابحة كان لبعضنا بيع التولي لبدو واحد كمدين بيوع الأمانة نوع استعداد واحد يقف من خسارة كويبيو أو حراج كويبيو أو هذا لبكم بيجوا جوجا قالين كاسي كوني شن بقولون نسي ما كل استيد بقولون نجاسي أو حكى داديكو واحد بيع النقيصة أما وضيع على هذا وحراج حبوك الدي صدق هذا بيع بنايهم صدق إيبة شرعيان ويبنايهن وأنا بيوع الأمانة مركب مرابحة ونوع عاس كم إذا يبقى هذا يبقى مرابحة كوس ليسن قفكو كان عصدها هي وحنو سوي يبسدي وحكو تشوقي إنه فايدة صارته لما النوع بيكون تماتا المرابحة البسيطة مرابحة فضوط أما مرابحة الثنائية لأن المرابحة الثنائية مرابحة لبعض بدرفك كوبان وكليه إيو المرابحة المركبة مرابحة قيبها بدنك كوبان أما المرابحة الأمر بشرنا ولا هذا أنت هراء وحيكم أنت لما قف علابتي بهروه هيستي أياد أردنا السوار علابتها سمسي كوتشوكتا قالين كاسمسي كوتشو لبكون بقولبان كوف عيدة يجي إيبي أما سأقولن قالين لبكون بيوتشوكاي بقول يقول دراه يجيبسو والله ضرفه كله وكده حياة بيع المرابحة ولا هذا الثنائية بيع المرابحة للأمر بالشراء بيع المرابحة للأمر بالشراء أما المرابحة المركبة أما المرابحة المصرفية صحيح ما قاعد ولا هذا ونوع بنجيد هذا أنت بدنا كل شقيان كان عصدوه أما بنكها هذا أما قف عادي هذا ألعبتنا أدوني سما هيو هذا كدونيسو حتى ما هيو تنو حنا waxaan u baahanahay alaabta muwaasafaadkaas leh alaabta sifaadkaas leh tusaalahan gaariga waxaan u baahanahay lambarkaas leh Toyota ah aynkaas ah
meel heblaya yaalla ama meesha sheegi may sidii gaari sifaadkaas leh modelkaasa midabkaas leh noocaas ma u baahan odhanaysa hadda ma hayo markaas aad dalbato ayuu doonaya soo iibsanaya markuu soo iibsado ee uu yeesho mulkiyo gacanta soo geliyo ayuu ka iibinaya ganacsiga dhamma ku shaqeeya ganacsiga waxa laga iibsadaa dhamaantood gacanta kuma wada hayaan ganacsadeen bacdin hadaad u tagto wax weydiiso oo tira alabsan u baahanahay waxa kula bariis oo noqo oo soo iibsado birad ka iibiyo marka wax iskaal oo sharci ku jira مثل الإمام الشافعي إمام كان وين مذهب الشافعي محمد بن إدريس أيال لويتي كما في كتاب الأم زي كتاب كيس على الأم كسوغان كورن هادون نيكو كويدا هادو هبلو علاب تاس يبسو هداد يبسو توان كا يبسنية وانا كوفا إيدية كورن بالغوري وحاولي وحدة باتيكم يجرتو قف كان markuu soo iibsado kan laga dalbaday soo iibsadana kii ballanta u qaaday khiyaar buu leeyahay waanu ka iibsan karaa waanu ka tagi karaa meesha mas'ala kale soo galayso la yiraahdo muwaacada hal hiya mulzama alwa'd hal huwa mulzam am ghayru mulzam waa mas'ala kale oo baabkeeda leh laakiin umuuman qof inuu dalab wax ku soo iibsado oo ku sii iibiyo waa mas'alo culimadii hore aymadii hore ay ka hadleen kaligiina ma hayman fara badan baa ayaa ka hadashay marka noocaas horta muraabaxa la yiraahdaa waa iib sharci ah oo kamida iibabka noocyada xuloo kala iibsada kamida weey in ma jirtaa culimada cidiiday horta haddii la culimada cidiiday ma jirtaa waxa muhiim ah in la qiimeeyo masaladu iibka noocani ma nas quraana buu ku yimi mise qawaacida islaamka guud ee iibka ka warramay baa la haleeshiyay iibka noocani waxa la haleeshiyay iibka caadiga ilaahay banay xal Allahu al-bay' ilaahay bay' buu banay bay' ala nima kala qaadin ilaahay bay' buu banay suwarka ama qaawka bay'u yimaada mid kamida noocani weeye noocan marka iyo noocyo kala cidima diiday culimada bay' iyo fara badan oo culimada ku shaqeeyaan oo caalamka islaamka ku shaqeeyo oo waligood soo shaqeyn jiray lama waayo caalim ama caalim kale oo intuu saawiye kale ka eegay yiri anigu masaladaasi ima muuqato tan soo dhaweeyo ayga cunistiisu xaraam soo xalaal ayga cunistiisu soo xaraan ma soo xaraan uma naqaano culimada waaweyn islaamka qaar baa ku tagay inuu xalaal yahay marka khilaaf kasto la yiraahdo qof hebel baa diiday waxa la eegay xadda ictibaarkiisa khilaafkani mu'tabar ma yahay mise ictibaar ma laha iibka fatwada lagu banaynayo cunista ayga ayaa ka xoog badan oo ka miisaan badan halka ama labada sheekh ee diiday muraabaxada casrigan muraabaxada majaamic al-fiqh golayaasha culimada ee waaweyn ee caalamka islaamka oo dhan ka jira oo la oran karo waxa la gaarsiin kara xad al-ijmaac baa la gaarsiin kara ayaa isku wada waafaqay inay muraabaxadu tahay iib kamida iibabka sharciga ee bannaan sida culimada horeba uga hadashay ay u tilmaameen inta aan garanayo kumanaanka kun ee caalim ee ka hadlay ee wax ka qoray hal sheekh baan garanayaa oo diiday muraabaxada si kama dambaysa u diiday culimo kale oo qaababkeeda qaabkay u dhacaan qaab kamid ah noocaas ma fiicna ama ma banaana way jiraan iyaguna qaabka suruux loo weydiiyay ee suurada loo dhigay bay diiday muraabaxada guud ahaan may diidin culimada ugu waaweyn ee wax ka qortay wax kamid ah ashqar Dr. Maxamed Suleymaan al-Ashqar kitaabkiisii ugu dambeeyay uu ka noqday fatwadiisa hore oo waxa uu cadaatay in muraabaxadu iib sax tahay waxaan u dhigay dawaabid iyo ahkaam buu dhigay marka inta aan ogahay culimada waaweyn ee islaamka ee muctabarka cidiiday ma jiro laakiin culimada qaar kamida oo xadka sare culimada waaweyn aan gaarsiisnay weydiiyay ibn Uthaymin baa ugu culimada cid ka hadashay ibn Uthaymin laba fatwo leeyahay mid uu ku diidayo oo waxaana xudiyay suuro la weeyay muuqaal la weydiiyay buu noocaasi ma banaana laakiin caadiyan muraabaxada ma diidana oo fatwo kale aan haynaa oo uu ku banaanay muraabaxada dariiqadii loo maro inay banaantay sida iib kastaba dariiqada loo maro uu banaan yahay hadii dariiq khaldan loo maraana oo xaraan u yahay oo reeban yahay marka khilaafka ku soo aroray waa khilaaf ama shaad ama waa shaad oo xukun shaad ayuu qaadanaya
oo aan xukun aan la qaadan karin oo aan saa'iq ahayn khilaaf aan saa'iq ahayn weeye marka muraabaxadu maaha mas'ala shaki gasha xalaalnimadeeda iyo sharciyadeedu laakiin waxaan leenahay sida iib kasta hadii la khilaafo ahkaamtiisa oo khalad u noqdo iyana hadii ahkaamteeda la khilaafo de khalad bay noqonaysaa hadii sida loo marana iib xalaal weeye barakallahu fiik waayahay doctor su'aasha ku xigta oo la sii xiriirta su'aasha hore bangiyada hadda ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah doodaha dadku inta badan soo celiyaan waxa kamid ah in qofka laftigiisii lagu yiraahdo orado adigu soo eego shaygii kadibna markuu qofku shaygii soo arkay uu yiraahdo arin wixii baan soo arkay kadibna bangigu uu raadsado bangigu dabatana uu soo yiri marka dadka qaar kood waxay shaki galiyaan in qofkii wax doonayay laftigiisa shaqadii loo diro oo wixii oo dhan uu soo dhameeyo oo uu qofkii la soo heshiiyo oo hawshii oo dhan uu soo dhameeyo marka dooda noocaas ay shaki gelin karaysaa muraabaxadii barakallahu fi sayn tilmaanay muraabaxadu waa iib xalaal ah laakiin ahkaam bay leedahay dawaabid bay leedahay معايير شرعيه leedahay salahan kitaabkan waxa la yiraahdaa al-ma'aayir ash-shar'iyya wal-muraajaat wal-hukm wal-akhlaaqiyaat sadarkayso 1250 page weeye hab qaanuunigu qoran yahay dhammaan mucaamalaadka bangiyada islaamiga ku shaqeeyaan waa halbeega loo raaco lagu dhaqmo waxa diyaariyay boqolaal caalim baa diyaariyay kuwa soo diyaariyay kuwa dib u eegay golayaal waaweyn baa laga dooday qodob kasta oo qodobada kamid ah waxay soo jiraan culimo shareeco aqoon maaliyadeed leh qaanuuniyiin iyo bankers ayaa diyaariyay muraabaxadu waa miciyaarka ama qodobka 8aad weeye waxay u dhigeen marka ahkaam sharciye talaabo kasto la qaadayo muraabaxadu soo ururino sharciyadeeda 4 talaabo loo maraa ka koowaad waxa weeye waa codsiga in macmiilku intuu yimaado bankiga ka codsado in alaab loo iibiyo waxa la yiraahdaa marxalada muwaacada marxalada ballanta ama codsiga marxalada way taad ka hadlaysaa oo marxalada codsiga qofku intuu muwaasafaadkii iyo sifooyinkii shayga intuu keeno yiraahdo shayga noocaas aan u baahanahay hal iibiyo maaha waxa la cabirtay ula soo heshiiyay heshiis maaha hadduu heshiis noqdo oo intuu qofku macradkii gaariga iibinayay tago uu la soo heshiiyo heshiis kama dambaysan la soo heshiiyo kii macradka gaariga ninkii ma gaariga iibinayay oo kula soo heshiiyo gaariga waan ka iibsaday lacagtii baan ku raadinaya ama bangiga iga bixinayo kula soo heshiiyo iibkaas aan sixi maayo laakiin wuxuu ka soo qaadanayaa oo kale gaariga misaad siinaysaa uu baayacaya gaariga misaad siinaya kama dambaysan misaad siinaysaa intaasaan siinaya inta ma dhaafi karo qiimo sheeg igu qor warqadu heshiis ma uu soo qoraya laakiin waa qiimo sheeg qaan sheeg maaha haduu soo qoro gaariga waan ka iibiyo warqadana waa qaantii lacagta ma saxayso waa qiimo sheeg kaliya invoice ku soo qoraya waa qiimo sheeg kaliya alaabta uma haynayo meel uma dhigayo maartu gaariga isku dhex jiro qof hadda socdaa yimaado uu ka iibsanayo inta badana qiimo sheegta waxa lagu qoraa waqti waxani qiimahaas wuxuu faalid yahay ama uu ansax yahay muddo 10 sanadood 10 bilood ah 10 cisho ah 30 cisho ah waxaan kaas lagu qoraa inta badan waxaad inta hada soo noqoto qiimihii kugu kordhin maayo oo inta san ka siinay marka warqad waa in qiimo sheeg noqotaa hadii laakiin heshiis noqoto oo uu la soo heshiiyo oo kama dambays la gaaro iibkaas ansix maayo bangiga waa xaraan inuu galo iibka noocaas haduu ogaado in heshiis meesha dhacay marka inuu soo eegto qofku iibka laftiisa waxa ku dhisan yahay dalab oo maxaa qofkani muxuu u baahan yahay waxaan u baahanahay inaad iibiso buugaas marka waa inuu buuga sifaadkiisa sheega waa inuu qiimihiisa sheega waa inuu meesha uu yaala sheega ama calaqal hadaanu meel kaliya oo leen uu sifaadkiisa sheega waa buuga noocaas ah inaan ugu baahanahay marka taasi iibkii waxay leeyahay laakiin haduu heshiis haduu dhaco iibku inuu bangiga wax lagu heshiiyo la kala iibsaday dib muraabaxaya xaraan weey waa qadiyad u baahan marka bangiyada iyo maamulka bangiyada iyo shaqaaluhu inay ka digtoonaadaan dadka macaamiisha ahina inay ka digtoonaadaan way waxaan ogahay inay macaamilada dadka macaamiisha laftooda soo sameeyeen heshiiska ma dambaysa qof la soo heshiiyaan qaarkood inay gaariga qaataan waxa la sheegay xaalad mar intuu macaamiil la heshiiyay meherad alaabtii uu rartay gurigiisa uu geystay inuu warqadii invoice-ka uu keenay bangiga markuu yiri waxa alaabta waan ku iibinaynaa meeshaad ka iibsi aanu kaaga iibinaynaa tegaynaaye oo ka soo raranaynaa ama aanu ku ballamaynaa inaga warsug
intuu ugu horeeyay alaabta soo celiyo meesha ku soo celiyay oo alaabta halkan ha ugu yimaadaan waa khiyaamo macmiilku sameeyay way bangigu hadduu ogaado alaabta qofkan uu iibsado rartay inuu gala xaraan way laakiin haddaanu ogeyn oo isoo alaabta ugu yimi meheradii ugu yimi oo meheradii ka qaatay oo ka iibsaday oo macmiilku ku wareejiyay iibka bangigu sameeyay waa sax laakiin khiyaamada waxa sameeyay macmiilka sameeyay hadduu laakiin bangigu ogaa khiyaamada kula jira marka bangiguna waa ka taxadiraa oo aanu dariiq xaraana wax ku doonin macaamiishuna way ka digtoonaadaan mukhalafaadka noocaas way ka digtoonaadaan بارك الله فيك. ويه يدنا حجرا دكتور عبد الغني dood kale oo mudooyin kan dambe aad loo soo celceliyay doodaas waxay tahay bangiyada ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah qofka waxay saaraan faa'iido aad u fara badan boqolkiiba 10 boqolkiiba 13 boqolkiiba 15 meelahaas oo kala ay gaaraan mararka qaar kood marka dadba waxay ku doodayaan kuwa ribada ama bangiyada ganacsiga lagu magacaabay imika hawshooda la wadaa dadka waxay saarayaan wax yar oo boqolkiiba 3 ama 4 ah marka qaalinimadaasi ama dooda noocaas ee loo dhigayo qaalinimadaasi ma keeni kartaa in dadku ay u diga rogtaan xaraantii oo marka qaalinimada iyagoo ka cararaya dooda noocaas bal hadda ka war horta yani xalaashi baa qaalaya marka xaraan jaban baa la helaya way nuxurka hadalku way laba dhinac baan ka eegaya takood waxa weeye runnimada sheegashadan bangiyada islaamiga ay faa'iido qaali bay qaadayaan waxaana la helayaa bangiyo dulsaar ku shaqeeya oo wax jaban oo 3% ka 12% qaadayaan 3% qaada la helaya hadalka murakabka qaali iyo jabnaantaas inaan dhigay horta hadal been weey waaqica marka loo noqdo runta loo noqdo aqligan adeegsano wariyaala ma aha waa mala awal weey markaad leedahay waxaasi waa qaali waxaasina wuu jaban yahay waa inuu jira laba shay isbar dhigaysa oo ku muuqdo kana waa kan oo qiimihiisu waa kan kana qiimihiisu waa kan ha wuu inoo muuqdaa bangiga islaamiga muraabaxada waxay saarayaan faa'iido 12% ama 10% ay saarayaan taa waynu haynaa faa'iidada ay saarayaan horta intaynan qaali iyo jabnaan gaadhin waa iib kana in qofku ka faa'iida waa xalaal ganacsigeena hadii waaqicina uu noqono ganacsigeenu boqolkiiba 100 boqolkiiba 50 boqolkiiba 30 buu faa'iida bankiguna boqolkiiba 20 buu faa'iida marka horta faa'iidadu saaranaya intaynan qaali iyo gaadhin jabnaan horta faa'iido xalaal weey faa'iidada xalaasha ay qaali ma tahay mise way jaban tahay سين هو قال إني قالت هاي وينه هلا واحد مربر دقنه وموجني إني قالت هو شبان بنجي صار كل شقية وحلا البنجي بقى إيمانه يا أما بنجية ترى كل شقية صدق إنه قاعد على يري ميل فوق تيجي معي واحد تيجي جيبوتي شار بيننا هاي اسكو ديجان بيننا هاي جيس كافر كانوا كودنا على إنه وين إنجا fursad badan tahay oo xaka riskiga way wadan degan oo mu'taraf ah oo sugan weeye inaga lama ixtiraafsana Soomaaliya lama ixtiraafsana siyaasadeedu ma degana oo inaga adees qaylada habeenii maalin isku qaylanayna shirkadaha waaweyn oo dabadeedna la joogo oo xasilooni inoo jirta awgeed inagu soo aaminay hantidoodii ma jirto markaynu Djibouti isbarbar dhigayno bangiyada jooge ee ribada ku shaqeeya iyo kuwa halkan imanaya hatta ansax ma ayna isbarbar dhigno way Djibouti waa wadan degan xasilooni siyaasadeed leh caalamku ixtiraafsan yahay shirkado waaweyn iyo bangiyo qowdo dabadeed xataa ilaalinaya hantida taala ayaa jooga marka haddana hadaynu isbarbar dhigayna bangiyada ribada ka shaqeeya misay qaadaan ba muhiim isweydiino bangiyada dulsaarka ka shaqeeya 12 10.5 bay qaadaan bangiyada dulsaarka ribada ku shaqeeya Djibouti ka jira 10.5 iyo 11 bay qaadaan mararka qaar koodna way ka badataa oo qiimaha bangiga dhexe ayaa gooya qiimaha bangiyada dulsaarka qaadayaan bangiga dhexe gooya hadba xaaladda dhaqaale ee wadanka ayuu ku maamulaayo isaga maamula rate-ka interest la saarayo bangiyada laakiin xaaladda hadda bishiina dhaaftay ay qaadayeen 10.5
ayuu ahaa weliba waxaan filayaa bangiyada dhexdooda markay tahay haddii qofka ama sharikaadka la siinayna inay ka qaali ka salaato ay u badan tahay Kenya waa saasi lageeduna reedka mid la mid ah way haddii Soomaaliland la yimaado inay ka qaalisanaato mooyaane aqliguna ma siinayo Kenya wadanka xasiloon ee awoodda dhaqaale leh ee la ixtiraafsan yahay intuu bangi ka yimaado qiimo ka jaban ku bixinaya hantidiisii oo Soomaaliland ku sii dhexteynaya taa ani aqliga u siin maayo horta taas marka in la yiraahdo bangidu saddex ba bixinaya saddex qaadanaya ayaa imanaya wadanka waxa isleeyahay waa mala awaal aan run ku dhisnay way waa ta koowaad oo haddii laba heli lahaa xaraan jaban oo saddex qaadanaysa dil heli maayaba mid la helayaba maaha marka labaadna horta qof muslim ah inuu kala doorto xaraan iyo xalaal ama ha jabnaadaan ama kala qaalisanaadaan qof iimaankiisa iyo diintiisa wax munaasib ku ah u cuntama maaha waanu naqaanaayo zinadu way jaban tahay zinadu soo xaraan maaha zinadu way jaban tahay waxa laga yaabaa wax lagu siiyo adiga marka qaarkood inta lagu dalbado aan lacag lagu siiyo laga yaabaa oo aan qiimo kaaga bixin guurkii xalaasha ahana waatan dhalinyaradu dee doobnimo ka bixi la wada qaylinayso waa qaali meherkii baa qaaliya arooskii baa qaaliya noloshii dhan baa gurigii baa qaaliya marka ma isku doorsan karaa kana jaban kana qaaliya kana jaban inuu buuxin kara qofka muslimka marka hore inuu kala doorto xaraan iyo xalaal munaasib maaha mar labaad haddii ribada u noqono dee laba heli maayaba oo waa dadka been laga iibiyay weeye waa dad been dadka mujtamaca laga iibiyay weeye wax dhaba maaha halka waxa kale uga faa'iideysanaya oo xeerkan ku noqonaya hal kelmad xeerkan waxa leeyahay bangiyadu saar ku shaqeeya ayaa imanaya wadanka oo wax jamac ku bixinaya xeerka bangiyada shirkadaha ganacsiga ahi uu ansaxo waa la ansixiyay 2005 meelaha falayn la ansixiyay 2005 2003 meelaha la ansixiyay xeerkan shirkadaha ku shaqeeya shirkadaha maalgashiga waxay u shirkadaha waaweyn u waayeen shirkadaha waaweyn ganacsiga maal la keeno shirkadaha maalgelineed waaweyn oo bangi ahayn oo qaaraadka ka kala gudba maxay u iman waayeen intii bangiyada leeyahay sharci baa hor taagan tu kale ku darso imika bangiyadu sar ku shaqeeya jooga wadanka laba bangi baa laama ugu furan yihiin oo sar ku shaqeeya oo golaansho ku meel gaar la siiyay way shaqeeyay shaqeynayeen ay xuso kordhin waayeen yaani in waaqica dadka runta loo sheego dadka been loo sheegin waa muhiim weey waliba dadka aqoon-yahanka aqoonta sheeganaya waaqica la socda in dadka la khaldo oo meeriyaha laga khaldo aad baan ila runtii ila falxun tahay marka aan soo gabagabeeyay bangiyada islaamiga ahi hadii laga cawdo faa'iidada bad saaraan faa'iidada ay saaraan mujtamac xaq bay u leeyihiin ka cawdaan inay ka jawaabaan xaq bay u leeyihiin laakiin xalaalnimadii shayga saameyn mayso xalaalnimadii muraabaxada saameyn ku yeelan mayso inta laga faa'iido ganacsigan oo marin maayo ganacsi sanadkii 10% wax ka faa'iido inuu jiro oo ninkan markuu maalkiisa ku dhiibay oo 10% ka faa'iiday maalkiisa sanadkii hore ku shaqaysanaysaa ma ahayn markaba soo celinayso sanadkii hore ma maqan tahay maalkii tusaale ahaan nin ganacsada maalin iyo wuxuu ugu yiri bangiga maalgelin baan ka qaatay waan ku khasaaray sidaa daraadeed waa xaraan waxaan ku laba arrimood baan ku oranayaa su'aalo baan ku weydiinay dheeraada laakiin aan ku horeysiiyay horta inaad khasaartay xaraan ama aad faa'iiday xalaalnimo tu sameeyso inaad faa'iiday inaad khasaartayna xaraanimo tu sameeyso oo ganacsigu inuu khasaaro kama ratib mayso inuu xaraan aha arrimo kale factors kala saameeya inaad faa'iidina kama dhalanayso inuu xaraan aha oo ganacsiyada adduunka maanta ugu waaweyn xaraan bay ku dhisan yihiin mid kale aan kugu celiyay waxaan ku sidee baad ugu khasaartay wuxuu yiri alaabaan soo siistay 10% uu saaray baan anna saaray tabeeno waxba kama faa'iidin expenses-kii baa dheeraad waliba igu ahaa buuri imisa alaabta ku dhameysay baan waxaan ku dhameeyay guri 2 bilood marka 2 bilood lacagtiisa qaadin ma iska celisay baan ku yiri ma wuxuu yiri dalab kale aan ku dirsadayo markaan dalab kale ku soo digi dalabkii labaad ma ka faa'iiday baan ku yiri haayo 10% ma ka faa'iiday lacagtii meed markaa hadana wada celisay ma dalab saddexaad baan ku dirsadayo oo 3 bilood oo hadana kii labaadna iga dhamaaday kii saddexaad hadana 3 bilood kale iga dhamaaday marka waxa ka faa'iiday 10% haftada aan celinayna waxay ahayd faa'iido soo baxday raasamaalkii ma celinayna haftada soo celinayay waxay ku aadanayd faa'iido soo baxday waxa soo baxday ninka aan isla eegnay inuu 35% ka faa'iiday lacagtu bangiga ka qaatay 35% inuu ka faa'iiday ayaan isla meel dhignay
aan ku khasaarin marka ninkan lacagtu ku shaqaysanaya marka horta in haddii dadku cawdaan inay dariiq sharciga loo maro oo dadka bangiga la yiraahdo waa qaali oo bangiga dhexe maamule ama bangiga dhexe loo maro ama si toos ah loogu tago dadku xaq bay u leeyihiin taas xaq baa lagu leeyahay bangiyada islaamiga inay dib u eegaan laakiin in dhab tahay waxaan qaali yahay xaqiiqan uu dhab yahay in la sugo marka hore waa muhiim barakallahu fiik su'aasha ugu dambaysa barnaamijkeena Dr. Cabdulqani si kooban haddii aad u tiraahdo ma jiraan habab kale oo ay bangiyadu u maalgelin karaan bulshada una dabooli karaan baahida dadka muwaadiniinta oo aan ahayn meelahan dooduhu ay ka jiraan barakallahu fiik seen hore u tilmaanay saddex nooc bangiyada islaamka u shaqeeyaan inay adeeg bixiyaan oo adeega bangiyada kala bixiyaan ay kala siman yihiin inay maalgelin sameeyaan oo ay kaga ballaaran yihiin guud ballaaran yihiin bangiyada kale adeeg maalgelinta ay sameeyaan iyo inay ganacsi toos sameeyaan muraabaxadu waa juz yar oo kamida qayb yar oo kamida iibka tooska laakiin waa hubaal in bangiyada islaamka kuweena iyo kuwa caalamka jiraaba ay muraabaxada culays badan saareen oo aan mudnayn in la saaro hantidoodina halka inteeda badan geliyeen way jiraan waana ku dhiirigelinayaa marar badan horena waan tilmaamay in bangiyada islaamiga ku dhiiradaan siyaqa ama qaababka kale ee maalgelineed ee islaamku leeyahay ku dhiiradaan oo ugu muhiimsan yahay mudaarabada musharakada al-ijara al-istisnaa al-musaaqa iyo kuwa la midka musharaka waa hababka ugu naajixsan ama ugu faa'iidada badan ee ugu waxtarka badan nidaamka maaliyadeed ee islaamka wax loo maalgeliyo waxa weeye in maskax iyo maalba la wadaago dad badan baa jira oo mashaariic waaweyn abuuri lahaa laakiin raasamaalkii ay haysanaan ku filayn aqoontiina leh dadkaasi raasamaalkooda in la kabay u baahan yihiin waxaan u baahnay marka bangiyada islaamiga inay dadka kabaan oo raasamaalkooda kabaan maamulkiina la wadaagaan oo mashaariicda waaweyn ee maalgelinta u baahan musharakada ay fuliyaan waxa jira dad fara badan oo aqoontii iyo waaya aragnimadii leh laakiin aan raasamaal haysanin intaas oo mashruuc fulin kara ayaa jira waxa lagu leeshin karaa hab leeyahay mudaaraba oo ay bangigu bixiyo raasamaalka mashruuca dadkaasina ay maamulaan marka waxa soo dhan bangiyada markan ka wareystay wax ka weydiiyay waxay leeyihiin sharciyad in la kala qaban lahayd anaga dadkaas ilaa iyo imika ma jirto maxkamadii maaliyadeed ee waxa kala maamuli lahayd ee kala xukunay wadanka kama jirto maxkamad maaliyadeed ma jirto marka sharciyada lagu kala bixi lahaa iyo kalsoonidii bulshada iyo shaqayntii sharciga ayaan wali awood badan lahayn sida awgeed ninka maalkiisii wuxuu doonayo ilaashado muraabaxan waxa ugu muuqatay inay tahay meesha ugu sahlan hantiisii uu ku ilaashan karo laakiin markaas waxaan ugu baaqaynaa in ay ka gudbaan muraabaxada oo siiqa kale ee waxtar kale ay sameeyaan salahan salamka oo kale waxa lagu fuliyaa beeraha malaayiin dhul oo la ootay oo cadilan baa jiro qofkii dadkii lahaa aanay awood u lahayn ay ku maalgeliyaan ay ku kiciyaan waxaan maanta ugu baahi badanna waxa weeye in quuto daruuriga helo weey maanta ummadani ma laha full security ma laha haddii maanta baddaas xidhanto dhowr bilood si inuu soo noolaan karo ilaah baa og marka in dadku wax la soo baxaan mashaariicda wax soo saarka ee wadanka in bangiyadu maalgeliyaan aad iyo aad runtii aynu dhiirigelinaynaa aad baan ugu boorinaynaa in laga gudbo ganacsiga yar ee faa'iido u dhowdahay oo min aad u adkaynayno waana si jiro islaamku ku shaqeeyo dhaqaale islaamku yaqaan ku dhisan yahay weey waayahay barnaamijkii gaarka ahaa intaas aynu kusoo koobi doonaa intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Dr. Cabdulqani Badar oo barnaamijka su'aalihii runtii bulshada ay aadkaysu weydiinaysay maanta inooga jawaabay sidoo kale Mukhtaar Sheekh Xareed oo barnaamijka duubistiisa iyo isku dubaridkiisa lahaa intaynu barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.